waxaa muddooyinkii u dambeeyey soo ifbaxayay dhaliilo bulshada reer Somaliland ay u jeedinayeen xukuumadda talada haysa kuwaasi oo u badnaa inay xukuumaddu iibiso ama si qaldan ugu wareejiso cid gaara goobaha danta guud ee bulshadu ay wada leedahay. haddaba daawadayaal barnaamijkan oo taxana noqon doona ayaa waxaynu ibafur uga dhigi doonaa injineer Cali Cumar Maxamed Cali Xoorxoor oo ah mas'uuliyiinta sida qaldan uga faa'iideysta mansabka iyo mas'uuliyadda ay ummadda u hayaan kaasi oo la sheegay inuu saamiga ugu badan ku leeyahay dhismaha dekada Ceelkirte isla markaana uu ka mid yahay dadka dhismahan beeniyay ee gacanta ku haya arrimahan iyo arrimo kale oo aanu u kuurgalnay isla markaana aanu xogo dheeraada idinka hayno ayaa waxaanu ku soo ururin doonaa barnaamijka dabagalka isha kamarada. Andalilay Hafiz Yadawa Andalilay Umawada Dami Qarba Andalilay Mahadu Dalisha Dalisha Dimeno Adu Dalisha Mahadu Dalisha Dalisha Dimeno Adu Dalisha waxaan uga digay oo aan aad iyo aad uga soo horjeedaa ragga xukuumadda ee gobolka uga mas'uulka ah inay ku milmaan waxa weeye beeraha inay ku milmaan iyagu waa dawladdii dadka waa u dhex inay waxa weeye wixii khaldan qabtaan wixii nabadgelyada xumaynaya qabtaan wixii waddo saxa aan marayn qabtaan bay xaq u leeyihiin laakiin xaqu ma laha inay beera ka hadlaan oo dadka ay u hadlaan si cunfiyada aad iyo aad baan wax mahay waxa ka mid ah Maariya Dikiti markii shirka jaraayada ay qabteen waxoogaa Maariya wadarkiisa inuu ku leeyahay loohane waxaa jira dheef kula wadaago dhalanteed runmoodo dhaqaliyo wanaagaba laga dhabaabay baa jira xumakii dhigta wow dhaxad dhulka kii xaada wow dhaxad bal maxaa u dhimanay dhowrayaan xumakii dhigta wow dhaxad dhulka kii xaada wow dhaxad bal maxaa u dhimanay dhowrayaan dekeda anagu shicib ku eedayn mayno waxaan ku eedaynaa xukuumadda madaxweyne Siiraanyo sababtoo waxaad arkaysaa hadii magaalada Balood laga bixinayo intaasoo sharci baa loo sameeyaa intaasoo qof baa loo sameeyaa John Mitterrand isugu yimaad laakiin dekedan oo caalami ah dekedan oo la dhisaayo waxa weeye shicib ma dhisan karo oo ogolaansho haysanin anigu waxaan leeyahay xukuumadda arrinka ka dambaysa bal waynu ogaan doonaa waxaan u malaynayaaba inay sheer ku leeyihiin wasiiro ka tirsan xukuumadda waayo xukuumadda waxay noqotay xukuumo oo asiibay musuqmaasuq baahsani oo nin waliba halkuu ka soo gaadho danihiisa markay waayeen cid la xisaabtantay danihiisa uu jahaynayo ana badana washaada ugu tilmaane dimiro dhigayo wala kuma dhaafno kan u dhawaaqane dhagta ugu sheegnay dhowrsanna waayo wala kuma dhaafno xukuumadda maanta waddanka haysata sultaan wabarka buuraha galaynayada ka dambaysa balbalana muddo kordhintana halkaas bay ka wadaan baray ka wadaa ana badana washaada ugu tilmaane dimiro dhigayo wala kuma dhaafno kan u dhawaaqane dhagta ugu sheegnay dhowrsanna waayo wala kuma dhaafno nimayo waxa leena Cabdullaahi Xasan ninka la oran jiray ayaa ina Cabdullaahi Xasan baa abtigiina weydiistay isagiyo 18 jira dabeedna wuu u diiday dabeedna barigu dhulka ba qabsaday buu inuu keenay qurux badan oo iyo tabaro uruux xariira dabeedna Cabdullaahi Xasan baa yiri muxuu ahaa dabeedna wuxuu abtaan oo inantana isagaan u wada dabeedna wuxuu horta caawa wuxuu siiya
laakiin giddi wadataa buu daraawiishtii soo ramay dabeedna wataha isku daray dabeedna ninkii dhulba haddaa soo kale maxaa daraawiishay ka taahdeen waa iska taahayn hordayna cabdulla xasan baa diiday buu taaha arrintaana waa 18 jirkaanina taa u diiday ee uu maanta soo lugooyay buu ka taahday waa mu'amarad iminka waxaan leenahay ciise muuse dekeda berbera wuu ka taahay loohane waxaa jira dheef kula wadaago dhalanteed runmoodo dhaqaliyo wanaagaba laga dhabaabay baa jira xumakii dhigta wow dhaxad dhulka kii xaada wow dhaxad bal maxaa u dhimanay dhowrayaan xumakii dhigta wow dhaxad dhulka kii xaada wow dhaxad bal maxaa u dhimanay dhowrayaan bismillaahi raxmaani raxiim maanta horta halkan haddii la isugu yimi oo aananu keliga iyo aananu wax arkayno wax nala aragteen waxaan leenahay waa alxamdulilaahi rabbilcaalamiin waxaan leeyahay arrintu waa laba wax reer saaxiil bay u gaar yihiin waxna Soomaaliland baynu la qabnaa wixii reer saaxiil u gaara reer saaxiilow ha la garto wixii aynu Soomaaliland la qabnana reer saaxiilow ha la garto kana badan awashaada ugu tilmaane dimi oo dhigayo wala kuma dhaafno kan u dhawaaqane dhagta ugu sheegnay dhowrsanna waayo wala kuma dhaafno waxaan leenahay shirkadaha aan jirin ee ina hebeliyeyna hebela annagu 25 sanadood annagu 25 sanadood baanu ku noolan Yurub iyo Ameerika waanu naqaanaa wax kasta oo jira cilmiga dhaqaalaha waanu barannay iyo maalgashiga waanu barannay waar ina hebeliyeyna hebel ayaa gaalo iminkaan laba gidaar jiifo u soo ayaan u soo iibin karaa laba direysoo fiican laptopna waan u soo dhiibi karaa companyna waan ku sheegi karaa kana badan awashaada ugu tilmaane dimi oo dhigayo wala kuma dhaafno kan u dhawaaqane dhagta ugu sheegnay dhowrsanna waayo wala kuma dhaafno dadka waxaa ka shaqeynayana waxay doonayaan waxa weeyaan waa wax xun oo aan shacabka iyo dawladda iyo qaranimada Soomaaliland midna aan anfacay arrinka gacanka hadalka ah ee saaka ka dhacay meeshana la qaadan karaya ma aha wixii wax ka qabasho leh dawladda ayay saaran tahay wixii nidaamka barbar maraa ama ka hor yimaada dawladnimo iyo hoggaanka waddanka dawladda inoo dhisan talaba laga qaadaya berberi way ka wanaagsan tahay dalka intiisa kale waxay kaga wanaagsan tahay waxa weeyaan xadaaradeeda iyo wada noolaashaheeda iyo dadka reer berbera waa dad shaqaysto dad hadal ka shaqeeya may ahaan jirin arrinka ku saabsan dekado la dhisaayo xaafado ay dhisanayaana wax jira maaha oo dee wax waddanka ka jira maaha waddanka dawlad baa ka jirta dood cadaalada dadka maqashii sharcigana dumi ka digtoonow dad bulaaqay noqotee dood cadaalada dadka maqashii sharcigana dumi ka digtoonow dad bulaaqay noqotee mar kasta wuxuu tegi jiray ceel gardo calaamad buu sameynayay waanu garan karaynay inuu calaamad sameynayo horena way nagu muuqatay horta arrinkaasi arrin ay xukuumaddu ka dambayso horta weeyaan imika ciidamo xaggaa lagu saaray dekadii hawshii ciddii waxaa leeyahay dekadu waa khalad hadday khaladtay soo qalabka yaalo laga soo jiido maaha arrinta lasoo aftaro arrinkaas soo aftaro maa kuwana arrintooda la daba tago oo iyadoo la baabiyo qalabka yaalo imika laga soo jiido soo maaha hadday khalad tahay yaa war arrinkaa waxaanu leenahay aadan arrinkaasi waxaan u aragnaa sidaa wax loo wadaa
sidii habboonayd uma aragno way dhammeeyeen dhankoodii way adkeeyeen meel baanse dhaliilayaa way dhammeeyeen dhankoodii way adkeeyeen meel baanse dhaliilayaa maxaa dhimanaa dhaliishay ma lama dhowre dhaliishay maxaa dhimanaa dhaliishay ma lama dhowre dhaliishay waan dhaliilay xafiisyada waan dhaliilay ma wadaa dhamme qaar baan dhaliilay waan dhaliilay xafiisyada waan dhaliilay ma wadaa dhamme qaar baan dhaliilay maxaad ku dhaliisha dhaliishe nimeeno aad u dhaliishay maxaad u dhaliisha dhaliishe nimeeno aad u dhaliishay ruuhane waxaa jira dheef kula wadaago dhalanteed runmoodo dhaqaaliyo wanaagaba laga dhabaabay baa jira ruuhane waxaa jira dheef kula wadaago dhalanteed runmoodo dhaqaaliyo wanaagaba laga dhabaabay baa jira xumakii dhigta wow dhaxad dhulka kii xaada wow dhaxad bal maxaa u dhimanay dhowrayaan xumakii dhigta wow dhaxad dhulka kii xaada wow dhaxad bal maxaa u dhimanay dhowrayaan inay kala dhantaalaan dhulka horumarkiisiyo dhismaha iyo howlaha inay kala dhantaalaan dhulka horumarkiisiyo dhismaha iyo howlaha kana badan noloshaada ugu tilmaane dibiloo dhigayo wale kuma dhaafno kan u dhawaaqane dhegta ugu sheegne dhowrsanna waayo wale kuma dhaafno kana badan noloshaada ugu tilmaane dibiloo dhigayo wale kuma dhaafno kan u dhawaaqane dhegta ugu sheegne dhowrsanna waayo wale kuma dhaafno